iska diiwaangeli webkeena shaashada kaaga muuqda oo ku soo dir su'aashaada si lagugu jawaabo. wanaagsan dadkaana daawanayo halkani waa telefishinka Universal Studio magaalada Muqdisho waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waana dhakhtar oo maalin kasta oo talaadad kala socotaan TV-ga Universal xaruntu ku leeyahay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. barnaamijka waana dhakhtar waxaynu kaga hadalnaa caafimaadka guud hadba mowduuc aad u baahantiin aynu soo qaadanaa oo soo saarnaa miiska waxaan idin soo fadhiisinaa dhakhtarka aad u baahantiin si aad u soo weydiisaan su'aalaha markaasi mowduuca ama la xiriira qodobka aad u baahantiin ama aad xiiseenaysaanba. barnaamijka maanta waxaynu kaga hadli doonaa xanuunada ku dhaca hooyada xilliga uurka ay leedahay. daryeel noocee ayay u baahan tahay, maxay tahay waxyaabaha looga baahan yahay hooyada iska ilaaliso. qodobadaas iyo waxyaabo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkana waxaa marti inoogu ah Dr. Shariif Xidig Cilmi oo bartay daaweynta iyo sidoo kale qaliinka kana howlgala xarunta caafimaadka Bukaan Deeq. sidoo kalena dadka ayuu wacyigelin siiyaa waxauna aasaasay webka bulshada ay ka daalacato qormooyinka caafimaadka waxaana lagu magacaabaa Bukaan Deeq waxauna ka baxay jaamacadda UNICEF magaalada Muqdisho. ugu horreyn Dr. ku soo dhawow barnaamijka waana dhakhtar telefishinka Universal. ومحسنتها محمد وأنوه. watahay goorma ay marka ugu horeyso hooyadu ogaataa inay uur leedahay. ugu horeyn inta aan ka jawaabin su'aashaada haddii aan isfahansiino uurka iyo xilliyada uu dhaco ama la helo hooyada xilliga caadada markii ay hesho dhiigga caadada way ku kala duwan yihiin hooyooyinka qaar wuxuu socdaa 3 maalin qaarna wuxuu socdaa ilaa 7 maalin oo gaara marka kala duwanaanshahaas waxay ku kala duwan yihiin marka xilliga ay uurka helayaan uurkana wuxuu dhacaa sidiisaba muddo 6 maalmood gudaheeda marka uurka waxaa la helaa laga soo bilaabo maalinta dhiigga ay heshay hooyada maalinteeda markii la sii tiriyo maalinta ay ka qubaysato ay sii wado maalinta 12 wixii ka dambeeya ilaa iyo 17 lixdaas maalin ayaa uurka la helaa marka haddii aan u soo laabto su'aashaada jawaabteeda ee ah goorma ay ogaataa hooyada inay uur leedahay hooyadu waxay ogaan kartaa inay uur leedahay xilliyadaas aan soo sheegay 6 maalmood ah markii kulan hesho isla markaana bacrimin ay dhacdo waxaa la ogaan karaa muddo 12 maalmood kadib ay hooyadu ogaan kartaa inay uur leedahay ka hor haddii aysan sugin calaamadaha uu uurku leeyahay oo waqtiga loogu talagalay soo muuqdo. waxaa jira wax u sheegaya hooyada in uur ay leedahay. baaris ka sokow iyadoo aan la baarin hooyadu waxay heli kartaa calaamado muujinaya inay uur leedahay ama ay isaga shakin karto calaamadahaas waxaa ka mid ah lalabo matag dareenka naasaha oo isbedela waxaa laga yaabaa naaska inuu yara bar uu dareemayo kale ama in xanuun ka dareento kale taabasho dareen macnaha nooc kale ah lalabo madaxa oo xanuuna kaadi fara badan waxyaabahaas ayaa ka mid ah hooyada waxyaabaha calaamadaha ay ku dareemi karto iyo sidoo kale xilligii dhiigga ay heli jirtay oo la dhaafay oo uusan dhiigga imaanin waa waxyaabaha ka midka ah inay ku ogaan karto inay uur leedahay kadib marka waxay u baahan tahay xaqiijin iyo baaris. saalka goorma ayuu dhiigga caadi xilliga ku dhici jiray hadduu dhaafo muddo inta laga uurkaasi lagu ogaan karaa. sida hore kugu sheegaba uurka markii bacrimin ay dhacdo waxaa lagu ogaan karaa muddo 12 maalmood baaris ahaanna waxaa la isticmaalaa kaadi iyo dhiig markii qaabkii markaas ay heli karto hooyadu ay isticmaali kartaa markiiba uur ku dhaco 12 maalmood gudahood waa lagu ogaan karaa iyadoon la gaarin dhiiggii kale waa qiyaastii dhiiggu waxa uu imaadaa 28 maalmood kadib ama 21 maalmood kadib ayaa dhiiggu imaadaa marka iyadoon la gaarin qiyaastii waa 25 maalmood gudahood ayaa lagu ogaan karaa haddii bacrimin ay dhacdo. tusaale 28 maalin hadduu dhiigga caadi imaan waayo oo 30 iyo dhowr gaarto maalin maxaa la dhihi karaa oo dhiiggiina weli imaanin waa muhiim iyada laftirkeeda in meesha laga saaro caado wareer waxyaabo la xiriira inay jiraan marka calaamadihii marka ay hesho oo kale hooyada isla markaana ay weyso dhiiggii oo isaga shakiso inay uur leedahay waa inay baarista tagtaa ama ay baaris samaysaa baarista waxay ku samayn kartaa gurigeeda iyadoo joogta haddii ay technique barato qaabka loo sameeyo baarista kuwaas oo aan hore muuqaalo uga diyaarinay sidoo kalena waxay ku samayn kartaa inay baarka tagto isla markaana dhiig laga qaado ama kaadida laftirkeeda. tusaale hooyada haddii ilmo ay noogayaan oo kale oo dhiiggii caadadina uu imaan waayo suuragal ma tahay inay uur leedahay
marmarka qaar waa suuragal laakiin hooyadu marka ay nuujinayso totaliba badanaa inta ugu badan dhiigga caadada ma yimaado haddii hooyadu si sax ah ay u nuujiso marka taasi waa wax iska caadi oo dhiigga caadada badanaa maba imaadaba hooyadu marka ay uur leedahay laakiin haddii dhiigga caadadu uu yimaado kulan dhaco way imaan kartaa inay uur yeelato wax dhibana uma laha haddii xataa ay soo nuujiso ilmaha oo baarista ku ogaan karta ama calaamada laftirkeeda iyadana soo wajah oo ay ka mid tahay lalabadii iyo waxyaabihii qalabka caafimaad oo guriga ku isticmaali karto hooyada muddo intee leeg ayuu xaqiijin karaa sidaan kuu sheegaba 12 maalmood uur jiray ayuu xaqiijin karaa waxaan la baarayana waa wax lagu magacaabo HCG ama Human Chorionic Gonadotropin oo ah qaybta ugu horeysa ee abuuranta ee ilmaha ee ibida dhacan ay soo deyso oo jirka soo deyso kaas oo kaadida soo raaca ay guriga ku baari kartaa markii soo qaadato rapid test for pregnancy rapid test markii soo qaadato markaas ay guriga ku baari kartaa haddii technique ay hesho qaabka loogu baarayo kaasna waxay ka heli kartaa muuqaalo aan hore u sameynay oo ku jira page-keena YouTube-ka ee bukaandiiq ama website-ka barnaamijka waana dhakhtar la socotaan waxa uu si toos ah idinkaga imaanaya telefishinka Universal Studio-ha magaalada Muqdisho barnaamijka maanta waxaynu ka hadlaynaa ama mowduuca miiska inoo saaranba uu yahay xanuunada ku dhaca hooyada xilliga uurka ay leedahay telefoonada shaashada ku qoran ayaa si toos ah ula soo xiriiri kartaan oo aad su'aalaha u baahan tihiin mowduuca inuu ka hadlayno usoo weydiin kartaan dhakhtarka martida maanta barnaamijka inoogu ah Dr. Shariif maxaa inooga sheegi kartaa caqabadaha la soo gudboonaado hooyada markay uurka ay xaqiijiso hooyooyinku badanaa way ku kala duwan yihiin caqabadaha isaga mid ma wada ahan laakiin wax ay ka wada siman yihiin badanaa jira hooyooyinka ama hooyada uurka leh waxa ugu horeysa ay la soo dirsaa waa walaaca ayaa laba kala ah oo morning sickness ama nooc darsada oo hyperemesis gravidarum lagu magacaabo walaacan iska caadiga oo ka anaqaano ee lalabada badana hooyada aysan waxba badana isticmaalin oo wax u soo shiiraan laakiin markii uu darsado oo hyperemesis gravidarum oo yimaado hooyadu totally waxba ma isticmaali karto lalaba fara badan iyo matag soo noqnoqda ayaa la soo dirsa sidoo kale way fuuq baxaysaa afkana waxba kama qaadan karto waxay u baahan tahay marka fuuq celin iyo waxyaabo la xiriira kuwaas ayaa kamid ah sidoo kale waxaa kamid ah cudurrada la soo dirsa gaaska oo badan ay hooyooyinka cabtaan waxa ku keena wadna garaac iyo waxyaabo la xiriira iyo cunto cunus xumada laftirkeeda sidoo kale waxaa kamid ah anemiyada malaariyada oo soo wajahda waxyaabo lagu magacaabo dhiigkarka u goonida ah hooyada oo lagu magacaabo eclampsia iyo preeclampsia waxaa kamid ah kale xanuunada soo wajaha calool xiranka waxaa kamid ah dhiigga ka yimaada taranka iyadoo uur leh oo ah dhiciska ama cervical incompetence wax lagu magacaabo oo ah kafka oo xirmi waayay waxaa kamid ah ibida oo cilado ay ku imaadaan placenta brevia wax lagu magacaabo oo ah ibidii booskeeda inay ka wareegato oo ilmaha meesha ka dhali lahayn isku aadiso ama dhinac ay fuusho oo lateral ama placenta abruptia oo ah inay kala go'aan xiriirka u dhaxeeyay ilmaha iyo ibida sida perfusionkii ama wixii u baahnaa ilmaha uu heli waayo iyo kuwa kale oo aan la soo koobi karin inkastoo ku kala duwan yihiin hooyooyinka hooyada markay cunug naas nuujinayso oo iskaga shakayso inay uur leedahay ilmahaas naaska ma sii siin kartaa ها ويسيسين كرتا واحد ديبا ملها لا معناها حالة سايد اللي سو وجهده وعانا يريسو ويسين كرتا ناسك واحد ديبا كوم كيني هدي الماء شو ميان ما واحد يابها سو واحد دتكو اسكمل أولين لكن شبن وحبا كوم كينو قورك وعانها ولا سين كرا ناسك واحد سؤالين إنه كوسو نقولنا وحنا فرصة الصينية داود يا شقت كالتليفون كسيتو سوق شرا هلو داود ها تشرت حويدينا يا ولا عدك aad buu noogu hooseeyaa maasan هلا hello ها تشرت حويدينا يا تشرت maxay ahayd marka hore magacaaga meesha joogto waxagaaka waynu ku soo noqonaynaa daawadayaasha fursadan waynu siin doonaa su'aalaheena ayaynu guda gali doonaa ma jiraan doctor xanuuno ay ka wada siman yihiin haweenka xilliga uurka ها boqolkiiba 80 waxay dumarku ka wada siman yihiin walaaca waxay kale ka wada siman yihiin kaadida soo noqnoqota oo hooyadu mar walba ay suuliga galayso oo ay kaadi inay hayso ay dareemayso wax yar ay ka imaanayaan waxyaabahaas kale way ka wada siman yihiin laakiin xanuunadan kale oo joogtada ah ee aadka dhibka u keena badana kama wada sina hooyooyinka war kale dadka ugu badan aad qaabishaan sidee ula tacaashaan idinku gaar ahaan haweenka wax ugu badan aan u shaqeyno oo haweenka oo uur kale
marka cilado fara badan ayaa jira oo hooyooyinka isku mid ma ahan hooyaha laga yaabaa cabasho badan muujinaysa inay ku timaado oo aad screen wax walba aad u samaysid laakiin dhib badan uusan ka muuqan waxaa kaloo laga yaabaa hooyo dhib badan hayo inay ku timaado laakiin cabasho badan aysan muujinaynin markii aad baaritaan badan u samaysidna aad ku ogaatid marka waxyaabaha ugu badan badana aan aragno waxaa ka mid ah ibida ciladaha ku imaada ayaa aad u badan waxyaabaha aan aragno markii ultrasoniga hooyada la saarayo trimesteriska saddexda bil ayaa lagu ogaadaa marka ciladahaas ayaa ugu badan sidoo kale waxaa ka mid ah anemiyada iyo waxyaabaha la xiriira iyo waxyaabo kale waxagaaka barnaamijka waana dhakhtarada socotaan waxa uu si toosa idinkaga imaanayaa telefishinka Universal Studio magaalada Muqdisho daawadayaasheena kala duwan ayaynu fursada siin doonaa wili waxaynu ku guda jirnaa su'aalaheena daawada telefoonka shashada ku qoran ayaa si toos ah loo soo xiriir kartaa su'aashaad u baahan tahay oo ku saabsan mowduuceena maanta oo aynu ka hadlayno xanuunada ku dhaca hooyada xilliga uurka ayaa si toos u soo weydiin kartaa dhakhtarka maanta martida inoogu ah barnaamijka waana dhakhtar ee telefishinka Universal Studio Muqdisho doctor su'aalaheena aynu soo noqonaynaa muddo intee la eg ayay xaaladeedu hooyadu caadi ku soo noqonaysaa marka uurkeedu bilowgaya sidaan hore usoo sheegnaba uurka wuxuu dhacaa 6 maalin 14 markii dhiigga laga soo tiriyo ilaa iyo 17 ama 18 inta u dhaxaysa oo ay ku kala duwan yihiin ranjiga kadib markii uu dhaco hooyada waxa la soo dirsaa walacuna waxa uu imaadaa walacu marka wuxuu imaadaa isbuuca 6aad iyo isbuuca 3aad inta u dhaxeeya hooyada marka walacu waxa uu socon karaa ilaa isbuuca 14aad ama first trimesterisk oo lagu magacaabo oo ah 3 bilo hore ayuu socdaa marka isbuuca 14aad ay caadi ku soo noqon kartaa dhanka walaca marka laga reebo xanuunada kale waa wax la soo dirsay una baahan hooyada in macnaha la tacaalo oo daweyn sax laga siiyo si looga hortago dhibaatooyin inuu ku sababo ayada iyo ilmaha uurkeeda ku jiraba sidee marka loo baxnaanayaa marka uurkeeda oo bilowga uu yahay aysan raashinka qaadanaynin wax walbo diidan tahay kala duwan yihiin qaabka loo baxnaaniyo mid ayada ayaa looga baahan yahay inay isbedel la timaado midna waxa waaye markii isbedel ay isku daydo way wax ka suurtageli waayaan inay xarunta caafimaadka ay timaado ugu horreyn waxa laga rabaa hooyada markay uur leedahay waliba uurkeedu uu cusub yahay inay isticmaasho raashin aad u yar oo aan badnayn halkii mar waqtiyo isku dhowna ay raashin cunto waxa kale laga rabaa biyo inay cabto saacad kadib ama nus saac kadib inay biyo isticmaasho inay iska ilaaliso cuntada saliidda leh sidoo kale waxa laga rabaa cuntada basbaaska leh inaysan isticmaalin iyo waxyaabaha la xiriira taa waa marka lifestyle modificationka ama waxyaabaha laga rabo ayada gurigeeda inay ku samaysato oo iyada laftirkeeda ay kamid yihiin cuntada ay cunayso in ayada aysan karsan oo ay codsato qof inuu u soo kariyo si umiga uusan ugu bixin taasi wata iyada laga rabo haddii xaaladeedu darsato sidaan sheegay heber ms grafidaram ama xanuuno lamidana ay imaadaan waxay u baahan tahay isbitaal inay tagto oo lala tacaalo isla markaana rehydration la siiyo electrolyteski waxyaabihii jirka u baahnaa ee ilmaha ay ku korayeen oxygenka badan ee u baahneed ee qaadi lahaa in supplementation ahaan loo siiyo isla markaana mataga badan ay sameynayso laga hortago oo vitamin B6 iyo waxyaabo lamid ah la siiyo wata xaaladahaasi marka maxaa lagu macnayn karaa oo markii bilowga ilaa iyo walac ay dhaafayso kale waxa lagu magacaabaa badanaa morning sicknesska marka waa first trimesteriska waa 3 bilo ugu horeysa waajibna waxa ku ah hooyada 3 bilo loo qaybiyaa uurka 3 bilo hore markay dhameysato hadii xataa iska caafimaad qabto oo aysan waxba dhib la kulmin oo ay matagi xataa ka reysato iyo lalabadii waxa waajib ku ah ama laga rabaa muhiim ah inay booqato xarunta caafimaadka si check up loo sameeyo hadii xataa aysan xanuunka caabanaynin sidoo kale 3 bil walbana waa laga rabaa ilaa ay ka dhalayso hadii xataa ay caafimaad qabto oo wax dhib aysan ka caabanaynin waa laga rabaa inay booqato waxaa telefishinka Universal Studio magaalada Muqdisho la socotaan barnaamijka daawanaysaan waana dhakhtar markan waxaanu la hadlaynaa daawadaha qadka ku jira ee doonaya barnaamijka ka qayb qaato hello daawade hello walaal salaam calaykum وعليكم السلام walaal ku soo dhawo barnaamijka waana dhakhtar waan ku dhaw walaal magacaaga iyo meesha joogto magacaygu waa Salwa Maxamed Xasan oo joogta degmada Ujur waad la socotaa barnaamijka Salwa walaal barnaamijka Salwa ma socotid
haa in badan doctorka waxaa weydiinahaa haye labada qol aynu ka xunnahay gabadhaasi qadka ayaa ka go-ay. waxaan rajeynaynaa inay dib ugu soo laabato oo ay fursadeedii hore dib u hesho, isla markaana su-aasha ay u baahan tahay dhakhtarka weydiiso si looga tala bixiyo. daawadaha kale qadka ku jira ayaan markaan fursadaas siinaynaa, waynu kusoo noqon doonaa daawadayaasheena. maxaa looga baahan yahay marka haweeneyda bilaha ugu horeysa markay soo gudubto oo bilaha dhexe ay gaarto xilliga uurka? sidaan hore u sheegaba, hooyada mar walba iyada waxaa looga baahan yahay si xanuunada ay uga gaashaamato inaysan isticmaalin raashinka duxda ama dufan kale, sidoo kale cuntada basbaas kale inaysan isticmaalin, in raashin fudud oo aan cuslayn inay isticmaasho sida annaga aan u isticmaalno kale inaysan u isticmaalin oo 3 waqti hal mar wax badan aysan isticmaalin, laakiin 3 saacba raashin yar isticmaasho. sidoo kale cabitaankeeda inay badiso hooyada, saddexdii bilna inay ula xiriirto xarumaha caafimaadka haddii aan xanuun jirin. laakiin haddii xanuun jiro sida qoyaan waxyaabo la mid ah, wareer, wadna garaac fara badan, waa ku qasban tahay inay xarunta booqato dhakhtarkeeda ay u sheegto. inta badan haweenka dhig la-aan ayaa soo food saartay xilliyada uurka ay leeyihiin, maxay tahay sababtaas? hooyadu markay uurka leedahay way uga baahi badan tahay oksijiinka. xilliyada kale ee caadiga waxay u baahan tahay oksijiin fara badan si ilmaha koraya uga faa'iideystaan. anemiyada ku dhacda marka dhowr nooc waaye hooyada uurka leh. iron deficiency anemia nooc la yiraahdo oo ah ironkii ay u baahneed hooyada inay weyso oo ay jirkeeda ku yaraato, taas oo sahlaysay in ay qaado oksijiinkii uu jirka u baahnaay si xubnaha loogu geeyo kadibna ay uga faa'iideystaan. sidoo kale waxaa kamid ah folic deficiency anemia lagu magacaabo oo ah xubnaha abuurmaya ee cusub ilmaha iyo unugyada cusub ee dhiigga laftirkooda kii kori lahaa isla markaana badin lahaa inuu isagana maqan yahay, iyo sidoo kale vitaminiska qaar kamid ah waxyaabo ay sababaan. marka hooyadu uga baahi badan tahay mar walba xilliyada kale ee dadka caadiga ah. waxyaabahaas ayaana marka asal u ah inay macnaha anemiyadu mar walba kusoo degdegto hooyada haddii aysan helin supplementation. waxyaabahan waxaa laga helaa badanaa qudaarta iyo raashinka qolofta leh. raashinka qolofta laftirkiisu waa u muhiim hooyada oo waxay ka cabataa badanaa hooyada uurka leh calool xirinka. marka waa inay isticmaasho raashinka qolofta leh ee caloosha dhaqaajinaya si calool xirinka uu u yaraado oo cilladaha ugu badan ee la soo wajaha hooyada uurka leh kamid ah. daawadaha qadka ku jira ayaan markaan fursada siinaya. halow daawade. ها walaal. asalaamu calaykum. calaykum salaam. walaal kusoo dhawo barnaamijka. waa dhowaa walaal. ubax Cabdullaahi waa gaalkacyo kaaga soo hadlaysa. haye dhakhtarka si toos ayuu kuu maqlayaa. mawduuc waad la socotaa soomaha barnaamijka? maasha allah aad iyo aad khayr laanisi adiga iyo dhakhtarka. waxaan rabay uur baa leeyahay 5 bilood camala. waxa ay xanuunaya afka ka bilow bishimaha ilaa caloosha. marka waxaan isticmaalana waa gara waayay. markaa digirta iyo kale inta cuno waa waxaan dareemaa kulayl. marka ma gaasa mise waa fitamiin yarin mise waa umulow dadka waxay dhahaan bal insha allah. uma santay nabrahaas afka way fara badan yihiin cilladaha sababa. marka qaar oral trash wax lagu magacaabo kale noqon karaan oo ah dawo antibiotic oo kale qofka markuu isticmaalo nabro ku yimaada oo ah bakteeriyada dhimata. bakteeriya faa'iido u laha jirta. marka bakteeriyadaas oo dhimato kale way keeni karaan. waxaa keeni kara oo kale anemia. anemiyada noocyo kamid ah way keenaan nabro afka ka muuqdaan oo kale. sidoo kale waxay ka cabanaysaa wadna garaac oo waxa ugu badan waaye hooyooyinka hadda gaaska. marka waxay dareemaan badanaa wadna garaac badan iyo culays booga ka saaran. sidoo kale waxaa soo raaca badanaa dhidid iyo daal fara badan. waxaan lagu sii xaqiijiyaa xataa hooyadu iyadoo intigin baaris haddii ay cabto biyo yar oo biyo cabto way dhididaysaa kadibna way roonaanaysaa, way wanaagsananaysaa. wax yar kadib xanuunkii soo noqonaa. marka taas marka waa lagu xaqiijiyaa. mar walba oo hooyadu uur leedahana acid productionka ku badan, cunto cunus xumadeedana cunto cunus xubana way jirtaa. saas laadligeed dhacanka dheefshiidka ayaa ku badan, gaaskeedu iska badan yahay. mar walba waxay u baahan tahay marka dawo gaas inay isticmaasho hataa haddii aysan qabin bakteeriyadii gaaska keenaysa ee H pyloriga
hooyada way u baahan tahay marka waxa sababaya expansionka ama kala baxa minka maadaama ilmuhu ku korayaan acid contentskii wixii caloosh ku jiro dhan ayuu kor u soo qaadaa marka waxa dhici karta xataa daaca fara badan iyo raashinka inuu ku soo noqdo oo hooyada marka qaar ay dareento xataa raashin markay cunto day forest kale in raashin ku soo noqonayo waxaana sababaya dhuunta iyo meesha caloosh iska galaan sphincter lagu magacaabo gas sphincterka low sphincterka iskaga xirmaan caloosha iyo dhuunta oo dabacda qaybtaas waa markii raashinku galayo ay furantaa markii raashinku galana way xirantaa si gudaha wax uga imaaday iyo uga soo bixin marka meesha gaaska badan markuu yimaado waxa dhacaysa inay dabacdo kadibna raashinkii ay dhacdo inuu ka soo baxo marka jeerdi wax lagu magacaabo iyada laftirkeeda imaada hooyada uurka leh hadii iska daweynin waxa yimaada wax lagu magacaabo molar waste oo ah tiir ama dildilaac ku yimaada dhuunta laftirkeeda kadibna cilado badan sababi kara barnaamijka waan dhaqtarada socotaan Universal TV daawadayaasheena ayaan fursadaas siinayna marba marka ka dambaysa qadka telefoonka soo galaya daawadahan qadka ku jira ayaan markaan la hadlaya halo daawade ana ka xunnahay daawadahaasi qadka ayaa ka go'ay su'aalaheena ayuu gabagabo ku sii dhow doctor haweenka kale luga barar ayaa lagu arkaa markii ay cuslaadaan maxaa keena daawadahan ayaan markii hore hal mar fursada siinayna aan ku soo noqono su'aasheena inuu ka xunnahay daawadaas qadka ayaa ka go'ay luga bararka kale maxaa keena luga bararka ciladiisu way fara badan yihiin luga bararka hooyada waxa horta qayb kamida keena cilada ku dhaca kelida oo sababta hooyada marka uur leedahay badanaa xanuunada way inuu ku shahay oo waxa dhacda wax lagu magacaabo infection ama caabuq urinary tract infection ama cudurrada sexual transmitted diseases cudurrada lagu kala qaado galmada sida syphiliska wax lagu magacaabo ama sifilitada gonorrheada chlamydia iyo infectionka kale E. coli oo kale waxyaabo badan maadaama hooyooyinka ragga iyo dumarkuna isku mid ma ahan marka hore oo xubinta taranka ee dumarka banaanka ay taalaa badanana xanuunada hooyooyinka ama dumarku waxa ay ka qaadaan xilliga istijada waxa laga yaabaa saxarada inay dhaqdo kale gabadha ama hooyada kadibna saxarada ay dhaqday kaadidii inay ku dhaqdo gacantii ku dhaqday bakteeriyada halkaas inay ka soo raacdo kadibna si fudud ay ugu kororto xubnii taranka kadibna ay kaliya gaarto infection fara badan oo meeshaas ka imaado haddii aan soo noqdo bararka waxa keena waxyaabo kamid ah dhiikarka goonida ah hooyada uur kale lagu magacaabo eclampsia preeclampsia iyo marka uu darsado oo ah eclampsia dhiikarkaasi uu keeni karaa oo waxyaabaha ugu badan sababo ay cilada ku dhaca kaliyaha sidoo kale beerka cilada ka imaada iyana way sababi karaan marka bararka lugaha qaybahaas ayaa sababa haweenka kale waxa aad loogu diidaa inay isticmaalaan waxyaabaha qabowga sida barafka oo kale maxay taas sababta loogu diido wallahi waxyaabo badan barafka horta kan ugu badan ee hadda la sameeyo cusbada ayaa laga sameeyaa oo marka laga reebo kuwa ay guryahooda ku sameystaan dadka marka waxa ugu badan san rajeynayo waxa lagu diidayo waa cusbada ku jirta oo cusbadaasi waxay siyaadinaysaa dhiikarka ku imaada hooyada ee uurka goonida preeclampsia iyo eclampsiadaas marka cusbada totally iyada waxaan loo ogoleyn inay isticmaasho intaas ayaan leeyahay daawadaha ugu dambeeyay qadka ku jira ayaan markan fursada siinaynaa halo daawad hello qadka ayaa ka go'ay daawadahaas gabagabadii maxaad ku talinaysaa doctor dhammaan hooyooyinka uurka leh waxaan kula talin lahaa sida hore soo sheegnaba saddexdii bilba hooyadu inay booqato xarun caafimaad sidoo kalena ay sameyso xataa ultrasound iyo kale in la saaro ilmaha ku jira uurkeeda si ay u ogaato xaaladiisa waxyaabo loo saaray waxa kamid ah ilmuhu meesha ku abuuran yihiin inay ogaato sidoo kale ibida inay saxan tahay iyo miisaankiisa si saxa wadna garaaciisa kale mararka qaar sidoo kalena hooyooyinku inaysan isticmaalin dawo aan dhakhtar u qorin mararka qaar waxa imaanaya hooyo dhig baxaysa oo dhig ka socdo ama hooyo ilmaheeda aysan mararka qaar nooleen oo cilado ay iyadu gacanteeda ku sameysatay ama ay ku sameysay ay gaareen waxa kamid ah hooyo ku dhahaysa xanuun badan ayaan dareemay waxaan isticmaalaa marka ibuprofen oo kale ama antipain dawooyinka xanuun baabiya xanuunka yahay laadligiis tan marka taas waxay sababaysaa in ilmihii ay ku dhintaan minka ama sidoo kale dhiig bax badan inuu imaado
oo iyada dhicis inay ku keento gacanteeda hooyada sidoo kale waxaan kula tali lahaa cuntada basbaas kale inaysan isticmaalin cuntada saliidda faraha badan leh sidoo kale inay cunaan raashinka si fudud ay u cunaan oo 3 saacba mar raashin ay cunaan 1 saac kadibba inay biyo cabaan sidoo kale inaysan xiran dharka ku dhigan jirka ee dareenka badan sameynaya maadaama uu fidaayo calooshida ay fidayso intaas ayaan ku tali lahaa aad buu mahadsan yahay guud ahaan daawadayaal waxaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii waana dhakhtar ood kala socoteen telefishinka Universal Studio magaalada Muqdisho barnaamijka maanta waxaynu kaga hadlaynay xanuunada ku dhaca hooyada xilliga uurka waxaa martay inoogu ahaa barnaamijka Dr. Shariif Xidig Cilmi oo bartay daaweynta iyo qaliinka kana howlgala xarunta caafimaadka ee Bukaandeeq barnaamijku waxaan la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdinaasir ayaan waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada dhinaca farsamada ee kaamirada gacanta weyn ka geystay kala ah Cabdiraxmaan arka iyo sidoo kale Axmed Cali Barre Xafaara intaynu kulmi doono barnaamijka kan xiga sidaas iyo nabad gala dhamaantiin hadda waxaad heli kartaa talooyin caafimaad fadlan ka mid noqo saaxiibada Bukaandeeq oo guji subscribe nagu soo booqo xarunteena ama si aad balanta dhakhtarka u samaysato soo wac lambarka shaashada kaaga muuqda